beri baa waxaa jiray hooyo lax ah iyo toddobadeedii caruur ahaa. waxay ku noolaayeen guri ku yaalay meel u dhow kayn geeda dhaadheer leh. laxduna waxay ahayd mid aad u jecel toddobadeeda caruura. maalin baa waxaa ka dhammaaday cuntadii ay cuni jireen. dabadeetana laxdii hooyada ahayd waxay doontay inay cunto uga soo qaado bannaanka. waxayna ku dhahday carruurteedii, si wanaagsan ii maqla, cuntadii way dhammaatay, bannaanka ayaan cunto idinka soo qaadayaa aad u macaane. guriga sii jooga, albaabkana soo xidha, cidna ha ka furina aniga uun mooyaane. kaynta waxaa jooga dacaw beenaalaa, iska ilaaliyayaanu idin cunine. kadibna way dhaqaaqday oo way baxday, laakiin isla markiiba hadalka waxaa dhegaysanayay dacawgii beenaalaha ahaa. markii uu arkay inay laxdii weynayd ay ka baxday gurigii, ayuu u soo cararay dhankii ay joogeen carruurtii yaryarayd. kadibna albaabkii ayuu ku garaacay wuxuuna ku yidhi, laxayahow yaryari, waxaanahay hooyadiin ee iga fura albaabka. cuntadii aadka u macaanayd ayaan idiin soo qaaday. laakiin laxihii yaryaraa aad ayay uga cabsadeen oo codka hooyadood maaha sidan. codka hooyadood waa isla markiiba waxay garteen in waxaan hadlaya ee dhawaaqaya uu yahay dacawgii beenaalaha ahaa ee ay hooyadood u sheegaysay. waxayna ku yidhaahdeen, beenaale, waanu ku garanay inaad tahay dacawgii dadcunka ahaa. iska soco, waanu ku garanay ee kaama furayno albaabka, kaama furayno, iska noqo. markii dambe dacawgii wuxuu isku soo cod eekaysiiyey hooyadood, wuxuuna ku yidhi, iga fura albaabka, waxaan ahay hooyadiin, cuntadii ayaan idiin sidaaye, iga fura albaabka. carruurtii yaryarayd waxay ka shakiyeen codkan. kadibna dalool yaroo albaabka ka hoos yaalay ayay ka eegeen. waxayna arkeen lugihii dacawga. waxayna ku yidhaahdeen, beenaale, waxaa tahay dacawgii. lugahaagu way guduudan yihiin, lugaha hooyadayna way cadcad yihiin. mar kale dacawgii aad ayuu u cadhooday, wuxuuna yidhi waa inaan markan khiyaameeyaa laxahan yaryar si aan u cuno. kadibna uu noqday, wuxuuna tegay dukaanka, wuxuuna ka soo iibsaday daqiiq. kadibna wuxuu ku daadiyey cagihiisii. kadibna cagihiisii waxay noqdeen caddaan. wuxuuna u soo noqday haddana laxihii yaryaraa. kadibna albaabkii ayuu ku garaacay, hooyadiin baan ahay, iga fura albaabka, cuntadii ayaan idiin sidaayey. haddana mar kale laxihii yaryaraa waxay ka eegeen daloolkii yaraa. waxayna arkeen lugo cadcad. waxayna markan is yidhaahdeen, waa hooyadiina, ka fura albaabka. albaabkii ayay ka fureen. kadibna gurigii waxaa soo galay dacawgii gaajaysnaa. caawa ayaan idinku cashayn doonaa toddobadiinaba. laxihii yaryaraa way kala yaaceen oo way kala fardhadeen. midba waxay ku dhuumatay meel. mid baa ku dhuumatay dariishadda ama daaqadda hoosteeda. midna waxay ku dhuumatay saacadda hoosteeda. midna waxay ku dhuumatay sariirta hoosteeda. midna waxay ku dhuumatay albaabka dhexdiisa. laakiin gebigoodiiba midhmidh buu u soo qabtay oo uu cunay. xabaddii yarayd ee saacadda hoosteeda ku dhuumatay oo keliya ayaa ka soo hadhay. markii uu dhargayna aayar buu iska baxay. laxdii hooyada ahayd oo cuntadii soo sido oo iska soo socota, waxay cunto u soo siday carruurteedii yaryarayd, balse may ogeyn in carruurta yaryar uu cunay dacaw. kadib markii ay aragtay gurigii oo albaabkiisu uu furan yahay, aad bay u naxday. kadibna gurigii bay soo gashay. waxayna tidhi, aaway carruurtaydii yaryarayd, xaggay mareen? aaway carruurtaydii yaryarayd, maxaa idinku dhacay? xaggeed marteen? maad iga dhuumanaysaan? iga daaya ciyaarta. kabacdina waxay ogaatay in carruurteedii yaryarayd uu cunay dacawgii. iyadoo ooyeysa ayaa waxaa maqlay ooyinteedii xabaddii yarayd ee ku dhuumatay saacadda hoosteeda. waxayna tidhi, hooyo, maadigaa jooga? dacawgii ayaa cunay carruurtii yaryarayd ee kale, aniguna xaggan ayaan kaga soo dhuuntay. waxayna u soo dhaqaaqday haddana dhankii dacawga si ay uga soo badbaadiso carruurtii yaryarayd ee kale. kadibna waxay aragtay dacawgii oo meel hurda. aayar bay u imaadeen. waxayna soo qaateen maqas. kadibna calooshiisii bay qaleen. aayar bay ka soo saareen dhalihii yaryaraa ee kale, wayna soo badbaadiyeen. kadibna bahalkii waxay ku dhex gureen dhagaxaan waaweyn. kadibna dhagaxaantii markay ku gureen bay haddana calooshii ku toleen. kadibna dacawgii markuu soo toosay, miisaankiisiibuu culays buu qaadi kari waayey. haddana wuxuu is yidhi, ceel ka soo cabbiyo. kadib isagoo ceelkii biyihii ka cabbaya ayuu ku dhex dhacay ceelkii.
kadib markuu ceelkii ku dhacayna wuu ku dhex dhintay. sheekadeena maantuna intaasay ahayd. intaan ka kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga ama sheekadan sheekada xigta, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hooyadii iyo caruurtiina bannaanka iskaga soo baxeen si ay iskaga ciyaaraan, ileen dacawo ma joogta maanta